bulshada Soomaaliland bishaare ma ogtihiin cod bixinaan boob lahayn ku shubashiyo beenahayn xisbiya loo barataniyo qabiil walaga baxo xisbiya 31 May 2021 Somaliland waxay u ahayd maalin taariikhi ah waxaa qabsoomay doorashooyinkii isku sidkana ee golayaasha deegaanada iyo golaha wakiilada ee dalka waxay ku beegneed 20 guuradii ka soo wareegtay 31 May 2001 markii dadweynaha Somaliland u dareereen aftidii codbixinta dastuurka oo hal qof iyo hal cod ahayd taasi oo lagu ansixiyay dastuurka Jamhuuriyadda Somaliland intii ka dambeysay waqtiga waxa qabsoomay 7 doorasho oo kala ah 3 doorasho madaxweyne 3 doorasho gole deegaan iyo 2 doorasho oo golaha wakiilada ah oo tan ugu dambeysay ay isku sidkanay doorashadani waxay ahayd mid xasaasi ah kolka laga eego dhinacyo kala duwan oo lahayd culays siyaasi iyo saameyn ballaaran waxaana ahayd mid ay ku soo jeedaan indhaha caalamka iyo kuwa gudahooba halka doorashadu sidoo kale ahayd mid soo jiitantay muddo dheer oo si aadan loogu kala aragti duwanaa gaar ahaanta golaha wakiilada oo laga welwelayay qabsoomideeda waxa kaloo doorashadan ahayd mid isku sidkan oo aan nooceedu hore dalka uga dhicin doorashadan howlaha qabanqaabadeeda sida xulashada iyo tababarada howlwadeennada diiwaangelinta codbixiyayaasha jaangoynta dhaqaalaha ku baxaya iyo diyaarinta agabka doorashada waxa lagu fuliyay muddo ku dhow 1 sano nasiib wanaag doorashadan waxa isu diiwaangeliyay 1,556,847 qof oo ka codeeyay 2,709 goobood oo ay ka howlgalayeen ku dhowaad 30,000 oo howlwadeen oo isugu jira komishanka doorashooyinka qaranka goobjoogayaasha asxaabta qaranka wadayaal gaadiid 11,000 oo askari oo sugayay nabadgelyada iyo howlwadeenno kale doorashadan oo ka dhacday 22 degmo doorasho waxaa codeeyay codbixiyayaal ku dhow 700,000 oo qof oo u dhigmayay ku dhowaad 70% dadkii markii hore isu diiwaan geliyay waxaana ku tartamay musharaxiin tiradoodu dhan tahay 798 musharax oo 28 ka mid ah ay haween ahaayeen halka 5 musharaxna ay ahaayeen ama ka soo jeeday beelaha la haybsooco musharaxiinta guuleystay ee golayaasha deegaanka dalka dhammaantood waxa ay leeyihiin 220 mudane iyo marwo kuwaasi oo 3 ka mid ah ay ahaayeen haween halka golayaasha wakiiladana laga doortay 82 mudane oo dhammaantood raga doorashada kadib waxa si weyn u cadaatay inay aad u kala duwan tahay filashadii ay dadka qaar saadaalinayeen iyo maxsuulka togan ee ay yeelatay doorashadani kaasi oo noqday mid ka gudbay xuduudaha dalka Somaliland barnaamijkeenana waxaynu ku soo qaadanaynaa hanaankii ay u qabsoontay doorashadii isku sidkaneed ee golayaasha wakiilada iyo deegaanada Somaliland annaga oo ku soo bandhigaynaa aragtiyaha lagu bixiyay miisaanka doorashadu lahayd iyo sida looga gudbay hufnaantii iyo hanaankii doorashadu u qabsoontay iyo sababaha keenay waayo aragnimada iyo arrimaha cusub ee laga dhaxlay ama laga bartay doorashada iyo waxyaabaha ay Somaliland ka faa'iiday doorashadan siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaanba barnaamijkan waxaa ka qayb galaya xubno ka kala tirsan qaybaha bulshada reer Somaliland sida xisbiyada qaranka oo ah kuwii doorashadu ay dhex martay musharaxiintii ku tartamaya doorashada aqoon-yahano iyo siyaasiyiin ka madax bannaana doorashada ururada bulshada rayidka ah qaar ka mid ah xildhibaanadii xilkooda u dhamaaday xukuumadda Somaliland qaybaheeda kala duwan iyo goobjoogayaashii u kuurgalayay doorashadu sidii ay u dhacday diiwaangelinta kadib waxaa loo howlgalay diyaarinta dhammaan adeegyadii lagama maarmaanka u ahaa qabashada doorashada isla markaana si loo ilaaliyo kalsoonida iyo sharafta doorashada loona xaqiijiyo la xisaabtanka ka qaybgalayaasha waxaa la dhisay guddiyo farsamo oo madax bannaana sida guddiga ilaalinta anshaxa doorashada kormeerayaasha bulshada rayidka xeerarka dhowrista anshaxa iyo xisbiyada iyo weliba warbaahinta markii wax walba la dhamaystirana waxa ugu dambeyntii codbixintii doorashada loo dareeray 31 bishii May 2021 isagoo gudoomiyaha guddiga doorashooyinka qarankuna ku dhawaaqay bilowga codbixinta maanta inay codbixintii inoo bilaabatay dhammaan dalka goobahii codbixinta loogu talagalay ay si nabadgelyo ah uga bilaabmeen una wada furmeen ilaahay mahadi weeye waxaanu leenahay bulshada shacabka wanaagsan ee sida wanaagsan kiyada ugu jira ee codaynaya nabad ku codeeya
madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ahna gudoomiyaha xisbiga kulmiye mudane Muuse Biixi Cabdi iyo gudoomiyaasha labada xisbi mucaarad ee qaranka Soomaaliland u cidiyo wadani injineer Faysal Cali Waraabe iyo Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro ayaa markii ay codkooda dhiibteen fariin isku mid ah u diray shacabka reer Soomaaliland nabad ku codeeya waa laba doorasho muhiim ah aad bay adduunyadu inoo soo eegaysaa saaka haddaad daawateen waxa leeyahay idaacadaha waaweyn ee adduunka oo dhammi waxay ku soo jeedaan Soomaaliland xil baa ina saaran nabadgeliyo iyo nidaam iyo wanaag ku codeeya waan ku guuleysanay markii ugu horeysay inuu laba doorasho isku mar qabanno arrintaasi guud ahaan Soomaaliland guul bay u tahay shacbiga Soomaaliland waxaan ugu baaqayaa inay nabad iyo xasilooni ku codeeyaan maanta waa maalin weyn alxamdulilah rabbil caalamiin waa maalin taariikhi ah Soomaaliland doorashada waa doorasho Soomaaliland insha Allah taala u soo jeeysa magac iyo maamuus daacadnimadu waa qodob muhiim u ah qabashada doorashada xor iyo xalaal taasoo dhiirigelinaysa ka qaybgalka xisbiyada siyaasadeed musharaxiintooda iyo dadka wax dooranayaba doorka xukuumaddu ku lahayd hirgelinta doorashada oo aad u ballaadhnaa waxa aasaas u ahaa daacadnimada iyo ixtiraamka habsamida geedi socodka doorashada waana kan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo arrintaa ka hadlaya waxaan u mahadnaqaynaa xisbiyada qaranka ee mucaaradka xisbiyada mucaaradka waxaan ugu mahadnaqaynaa axsaabta Afrika mar walba mucaaradka tuhun baa jira waa lagu dhacaya waa lagu sharxay xalqa laakiin annaguna kulmi ahaan iyo xukuumadda waxaan ku dadaalnay inaanu xisbiyada ku qarcino waxa doorashadaas inay dhex noo tahay iyagana ku qarceen inkastoo labada xusbi kulmiye iyo wadani ay baashan doorashada ay dib u rideen murankoodii 2 sanad iyo badh ay dib u rideen haddana markii dambe ilaahay mahadli weeye daacad buu ka madaxweynuhu lacagtina uu bixiyey lacagtaas oo berigii hore inagu 120 bixin jirnay caalamku 75 bixin jiray caalamku markuu murankeenu batay ayay inaga nabsa jabeen isma ilaaheen way heshiinayaan marka insha Allah alxamdulillah saacadu dambeeya madaxweynaha iyo saddexda labada xusbi waan heshiinay ilaa waxaan ka baranaa insha Allah taala wixii ka dambeeya inaan 100% bixin doono aynu yeelan doono lahaanshaha doorashooyinkeena waa doorasho ay si wadajir iyo wanaaga ay uga soo shaqeeyeen saddexda xisbi qaran iyo xukuumaddu muddo sanad iyo dheeraada oo ay wax walba iyagoo wadaxda ka tiray ku heshiiyey oo farxad iyo wanaag iyo wadajir lagu galay anigu ma soo koobi karo nin madaxweyne oo Afrikaan ah oo doonaya inuu maalin dhow haddana xilka ku noqdo oo waliba la lahaa waa askari oo waxa weeyaan waa weligii sii dayn maayo oo kan oo macnaha waxa xisbigiisa ku cabanaya meelaha qaarkood in lagaga shubtay sawirka ay bixinaysan waa wax weyn marka waxa weeyaan aad iyo aad amaan weyn baan u soo jeedinayaa runtii wax weyn waa ku amaanan yahay oo saamaynta ay ku yeelanayso qaranka ayuu ka fikiray kama fikirin sawtiisa wasiirka wasaaradda maaliyadda mudane Sacad Cali Shire ayaa isaguna dhankiisa faahfaahiyay u diyaar garowga dhaqaalaha doorashadu ku baxay ee xukuumaddu ay samaysay intii dawladdu door weyn bay ku lahayd sidii berigi hore caadadeennu ahaan jirtay doorasho markaynu galno 5% waa laynaga caawin jiray 5% dawladda ku diri jirtay doorashadan dhaweyd sida kale ahayd 5% dawladda bixisay ilaa 5% waa laynoogu deeqay dawladda waxaa kaga baxay lacag dhan qiyaastii 16 milyan ilaa 17 milyan oo dollar baa kaga baxay dhinaca kalena ilaa 4 milyan ay qiyaastii ay noqonaysaa runtii haddaanay ahayn aniga ka go'naanshaha madaxweynaha doorashadaas inay dhacdo oo inagu aynu maalgelino aad buu adkaan lahayd in ku dhow 800 oo musharax ayaa ka qayb galay tartanka labada doorasho ee isbarkanaa ee golayaasha wakiilada iyo deegaanada dalka waxaana ka soo baxay isugeyn 302 musharax oo isugu jira mudanayaasha labada gole inkastoo ay ka qaybgalayaasha doorashadu baaxadda lahaayeen haddana doorashadani waxay noqotay tii ugu mushkiladda yarayd marka loo eego doorashooyinkii ka horreeyey waa kuwan qaar ka mid ah aqoon-yahanada siyaasiyiinta iyo waxgaradka dalka oo tilmaamaya aragtidooda ku aadan culayskii doorashadu lahayd iyo sidii ay u qabsoontay doorasho isku hal mar ah
oo hal maalin ah oo laba golo oo waaweyn ah ay noqoto doorashadaasi markaa qiyaas ahaan baarlamaanku waa 82 xubnood saddexda xusbi min 82 baa ka sharaxan waa 246 xubnood baa tartamaya golayaasha deegaanka marka la isku darana 900 bay ku dhawaanaysaa ama dheeraanaysaa culeyskeeda ilahayd warwarkeedana way lahayd waxa la badiyey oo maxaan ku dhahday tiradoodu ay korodhay goobihii codbixinta bacdama ay laba golo tahay kun iyo goobood baa ku darsameed 2709 goobood oo codbixineed ayay noqdeen maxaan ku dhahday goobihii maxaan ku dhahday codbixintu tira maxaan ku dhahday ku dhow 30,000 oo shaqaale ah oo shaqaalihii komishanka muraaqibiintii xisbiyada ayaa maxaan ku dhahday ayaa ka qayb galay tira ka badan tira ku dhow 11,000 oo qof oo ciidamada amniga ah ayaa ka qayb galay sida xaqiiqada ah waa doorashadii ugu horeysay ee aanay ka dhicin wax isqabsiya iyo wax maxaan ku dhahday cabasho ah iyo wax iska horimaadii toona doorashadaasi si nabadgelyaal bay u dhacday ciidamada qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland ciidanka booliiska iyo ciidanka militariga iyo ciidanka asluubta ciidanka ilaalada xeebaha iyo ciidanka immigration-ka way ka wada qayb galeen culayska ugu badan haba ahaadaan ciidanka militariga iyo ciidanka booliiska goobaha oo dhan way ka wada qayb galeen aad iyo aad baan ugu ammaanayaa shacabka reer Somaliland marka maadaama dadka aan kursi helayni ka badan yihiin nambarkuna aad u badan yahay waxa laga walaacsanaa in rabshadaba ka dhashaan ilaahay fadligii waxay noqotay doorashadii ugu rabishka yarayd ee abid Soomaaliland soo martay waxaan qabaa kaalinta xukuumaddu ka qaadatay ee ay tiri 75% waa $12 milyan oo dollar waa lacag culays badan oo dhaqaale nagu ah laakiin dhinaca kale marka laga eego waa warde sharafta bini'aadamka wax gooyaa ma jiro inaad sharaf yeelato maxay lacag qiimadeeda $12 milyan oo dollar barayna soo galayaan in qaran haybad leh oo sharaf leh inaad noqoto wax qiimo badan 100 milyan oo ku galfayso Soomaaliland baa laba doorasho oo 5% dhaqaalaheedii waxeedaba iyadoo ay isu qabto iyadoo qabsanayso ayaa deer ay hirtay dowlad ahaan waxaynu ku guulaysan 16 sanadood kadib markii ay fadhiyeen golaha baarlamaanka wakiiladu oo doorashadoodu ay suurtagal weeday xukuumadda maanta ee Musabbixi waxay ku guulaysatay inay doorashadaasi qabato oo muddo kordhin dambe aan jirin waa doorashadii golaha deegaanka sidoo kale ayay ahayd in iyadoo muddo dhaafa oo 10 sano afka la galaysa la qabto waxay ahayd doorasho lagu tilmaami karo mid taariikhi ah sharaf xoogeena maskaxdeena rabitaankeena ayaynu ku maamulanay 5% ku maamulanay garan maayo dawlad kale oo adduunka jirta oo Afrika degan oo doorashooyinka intaasoo kharash u hurta oo ku beerisa garan maayo Soomaaliyana waabay ku shaqaysataaba waaba u warshad lacag nagu siiya doorashaan dhigi doonaaye wax nagu siiya qalabna siiya lacagna siiya waaba warshad bay ku noqotay ay adduunka ku maalaan sharaf bay inoo tahay inaan dhaano doorashaan nagu dhiganaynaa idinka idin dhigi mayno annaga dhiganayna waxaan rabnaa codkii shicibkayaga inaan ogaano shicibkana waxaan doorashada ugu dhigaynaa lacagtii cashuurta ee aanu shicibka ka soo qaadaynay ee aanu ka soo ururinay ayaanu dib ugu celinaynaa inay rabitaankooda ay dib ugu codeeyaan doorasho waxay noo dhacday qiimo leh oo ah doorashadii u horeysay ee laba doorasho la isdul saaray waxay noqotay doorasho markii u horeysay in ka badan 20 haweeney ay ka qayb galeen waxay noqotay doorasho markii horeysay la siiyey magalaan saaye
fursad dadka laga tira badan yahay marka waxaan oran karnaa waxay ahayd doorasho inclusive loo wada dhan yahay Somaliland aad iyo aad baan ugu ammaanayaa madaxweynaha way u tageen commission way u tageen waxay dhahaan madaxweyne oo markuu dhammaatay magaalada diiwaangelintu waxay dhaaheen dee abaarina way jiraan bahalkana waa la bakacleeyey maxaa talaa wixii labadu ilaahay baa keenay subxaana watacaala labadaba keenay ilaahay keenay baanu ka nabadgelinaa shacabka ka codsan ilaahay naga qaado meel aanu ka noqonnaa ma jirto kamuu leebalaabaleena go-aan fiican buu qaato waanu ku ammaanay nabadgelye ku dhacday xasilooni bay ku dhacday ka qaybgal wanaagsan oo dadku ay ka qaybgaleen bay ku dhacday waxay u soo hoysay qaranka guul waxay noolaysay nidaamkii dimuqraadiyadeed ay ku soconay aad iyo aad ayaa loo soo dhaweeyey farxadna way u wada ahayd qarankoon laba doorasho oo wada socda waa markii ugu horreysay aynu qabsanay laba gole hadiyo goraale mid kale inoo rafa jirnay nidaamyadeena iyo baahiyaheena oo fara badnaa imika laba dhowr boqol oo qof 400 iyo dheeraad ku dhawaad deegaanada ah 28 xildhibaan ayaa min saddex xisbiyada saddexdaba ay soo sharaxeen intaasoo dhan ayaan wax laala wax dhibaato ka dhacay iyo wax xumaan ka dhacay iyo wax buuq ka dhacay goobjoogayaashii ugu tirada badnaa ee caalami ah ee korjoogteeya doorashooyinka Somaliland ayaa u yimid dalka si ay u hubiyaan habsamida doorashadii isku sidkanayd kuwaasi oo kormeerkooda ku soo maray inta badan gobolada iyo degmooyinka dalka ee doorashadu ay ka dhacaysay Somaliland maanta waxaa jooga konton dal dad ka badan kontonka dal ba waxa weeye waa markhaati warkeenay qaadayaan way geynayaan sida aynu u dhaqanno iyo sidaynu doorasho u qabsanno iyo nabadgelyadeenna iyo isjacaylkeenna iyo wanaageenna iyo wax isu ogolaashaheenna markay musharaxiinta timaado isu hanaynteenna dhammaan maanta waa la baranayaa miiskay saaran tahay waa doorashadii ugu horreysay ay inoo yimaadaan tiradii ugu badneyd ee goobjoogayaasha ahayd tirada goobjoogayaasha sanadka inoo yimi waxa ay ahayd 110 ay ahayd ilaa 30 dowladay ka socdeen safiiro ku xigeen ayay ahaayeen ka socda dowladaha midowga Yurub oo dhan inta kale waxay ahayd dadka goobjoogayaasha caalamiga ah ee ka qayb gala had iyo jeer doorashooyinka caalamka oo dhan ka dhaca goobjoogayaashu waxay si toos ah u tageen oo gobolba soo mareen 4 gobol doorasho iyo degmo doorashooyinkooda tageen taasi markaa waxay ku tusaysaa in aad iyo aad caalamkuna ugu dareynayay European Union waxay ka soo saareen qaraar wada jir ah oo ay iyagu u dhanyihiin waa markii ugu horreeyay ay sidaas natiijo uga soo saareen doorashada Somaliland goobjoogayaasha caalamiga ah ee u kurgalaya doorashadii Somaliland oo ah marqaatiga koowaad ee hannaanka doorashada u dhacday waxay warbixintoodii koowaad ee la xiriirta qaabkii doorashadu ay uga qabsantay dalka ay ku soo saareen 2 maalmood gudahood markii codbixinta loo dareeray waa kan Dr. Greg Mills oo ku hadlayay afka goobjoogayaasha and this was of course regardless conducted in an open and highly transparent manner which is commendable with the agreements of all the party agents. doorashadani waxay ahayd mid si heer sare ah u daahfurnayd oo mudan in la ammaano taas oo ay heshiis ku ahaayeen dhammaan dhinacyadu waxay ahayd doorasho ay hanaankeeda galaangal u lahaayeen muwaadiniintu guud ahaan waxay ahayd mid buuxisay dhammaan shuruudaha indhaynta ee goobjoogayaashu qiimeynayeen doorashadan oo ahayd tii 8aad ee dimuqraadi ah ee ka qabsanta Somaliland taas oo sii xoojinaysa dhaqankeeda dimuqraadiga ah iyada oo ku taal gobol aan laga aqoonin dabeecadda dimuqraadiyadda sidaa darteed waa in dunidu aqoonsataa gaar ahaan waa inay Afrika taageertaa This should be recognized by the world we maintain and especially supported by Africa. The 31st of May 2021 Somaliland election process was free, fair and impartial.
fair and credible. doorashadii 31 May 2021 ee ka dhacday Somaliland waxay ahayd mid kuma soo bixin aniguna waxaan ka mid ahay xubnaha aan ku soo bixin doorashadii golaha wakiilada ee aanu sharaxnaa waxaan dareemayaa inaan haddana aan guulaystay waayo qof baan anigu ahay haddaan guuldaraystay laakiin waxaan la dabaaldegayaa Somaliland oo guulaysatay dumarku ku cusbaayeen dhowr noocna way u qaybsan dumarka qaar reerahooda horta waxa beenooday dadku ma soo sharxi karaan dumarka been bay ahayd anaga war reerka iyaga dhiigga noo shuboona barbar cararay iyo qolyo kale waliba anagana dhowr waxna waa nagu dhacay maadaama aanu ku cusbayn khiyaanooyinka dhan ma inaan garan hablaha iyaga mas'uul markaan iswaraysanay qaar baan ogeyn waxa dee kubisho ku dhawaaqay mooyaan waxa riili keenay anigu waxay ila tahay waxay ahayd way u qalantay marka laga reebo dee waa la isoo khiyaameynay tartan ba meesha jiro tartan khiyaamo ku jirto khiyaameynayaan marka khiyaamada laga reebo waxay ahayd doorasho aad u wanaagsan horta xagga farsamada doorasho aad u qurux badan baa inoo dhacday doorasho ay Somaliland muujisay inay arrimaheeda ku filan tahay way dhaqaale ahaan xor tahay siyaasad ahaan xor tahay doorashadaas waxay muujisay inay dawladda Somaliland ay tahay dawladda isku filan karta oo arrimaheeda xallisan karta iyadoo aan helin taageero shisheeye dhinaca aad bay uga qurux badan tahay komishanka doorashooyinka qaabkii ay u qabteen doorashada aad bay u qurux badnayd waa doorasho aan la caban oo aan xisbi ka cabanaya jirin oo aan lagu kala cabanayn in la boobay iyo midmadow dhacay systemkii la isticmaalayna system cusub oo aad u qurux badan oo isna ka qayb qaatay in cabashadu yaraato marka dee doorashadu way ka duwaneed kuwa hore oo waxay ahayd doorasho ka qurux badan oo macno weyn u keentay Somaliland waxaa iyaguna ka mid ah dadkii arrintan ka hadlay xubno ka mid ah xildhibaanadii golaha wakiilada ee waqtigooda uu dhamaaday dalkeena doorashada maanta ka qabsoontay waxa weeyaan waa mid la oran karayo dalalka waaweyn ee dunida kama qabsoonin oo kuwa iyagu inoo keenay waxaan ay dimuqraadiyadda yiraahdaan ama nidaamkan doorashada iyagu inoo keenay waxyaabo aan ka suuragelin baa inaga suuragalay waxay laba doorasho oo labadooduba ay riski leeyihiin oo ay dib badan yihiin oo inamo deegaan wada degan oo saddex xisbi ka soo kala jeeda golaha wakiilada loo dooranayo golaha deegaanka loo dooranayo taasoo laga baqanayay inay culays weyn iyo xagga amniga mushkilad ku keento nasiib wanaag ma keenin kii loo codeynayna waxa weeyaan si wanaagsan kii guuleystayna ugu qancay kii laga guuleystayna ugu qancay hadduu cabasho qabay kii laga guuleystayna uu nidaamka sharciga maray waxa la oran karaa runtii Brian Fair aad u weyn ayay ahayd marka laga eego laba meeloodba habka marka hore goobaha ay uga codeynayaan dadku oo wax dhib ah ka dhicin iyo faragelin la'aanta dawladda Afrikaana oo dunida saddexaad ka tirsan oo wax la dunida wadiga arkaya wax ka dhacaya waxay ahayd doorasho sida laga marxaati furay ee inoogu dhacday wax weeyaan waxaan dhici karin bay ahayd mucjiso sida daraadeed waxa xorriyadda keenay waxa sharafta keenay waxay tahay inaynu inagu oo dawladdu ku amaanan tahay runtii waxaan ku amaanaynaa in uu bixiyay oo ka kaaftoomay oo yiri anigu ana qoorta taagaya oo Somaliland oo jeebkayga isticmaalaya ayaan rad qabsanaya horta aan ku tuso inaan wax qabsan karo xukuumadda iyo xisaabta qaranka horta xisaabta qaranka saddex xisbi qaran xisbi xaakimka iyo labada xisbi ee mucaaradka runtii mid walba kaalintiisu ka qaatay way isu dhabar adeegeen oo isu soo sabreen caqabado badan oo doorashada hortaagnaayo commissioniskii kamid ahaayeen arrimihii doorashooyinka xeerarkiisa ku gudbanaa kamid ahaayeen si wada jir ay uga soo dabaasheen runtii way ku wada ammaanayeen saddex xisbi xisbi xaakimkuna wuxuu dheer yahay free and fair elections doorashooyin xor oo xalaal marka waxaan isleeyahay waa u qurux in xisbiga xaakimka haddii xitaa laga badiyey laakiin inuu qabtay doorasho aan isaga lagu eedayn waxbuu istaba mariyey iyo u qurux taasaa sharaf u aydna Somaliland waxay xaqiijisay in doorasho xor iyo xalaal oo iyaa ku tilmaamaya waxa ku tilmaamaya dadkii ay ka dhaxaysay ee tartamayay ilaa doorashada xor iyo xalaalkii marka dadka
tartamay qaybi ay ka cabanaysay wax isdabamarin baa jirtay leedahay dee su-aal baa saaran waxaa isu raacay kuwii tartamayay tartanka u dhexeeyey mucaarid iyo muxaafid waxaa ku raacay international observers goobjoogayaashii caalamiga ahaa ee dunida inooga yimid inay doorashooyinkeennan indhaindheeyaan inay standardkii caalamiga caleeyeen waxaa isku raacay adduweynihii taageeray doorashada dee weli doorasho aan laguna kala caban sidaana la isugu raaco inay free and fair elections u dhacday waa tii koobaad waxyaabihii u sababta ahaa habsamadii ay u dhacday doorashadii isku sikanayd ee dalka Soomaaliland waxaa tilmaamaya siyaasiyiin iyo aqoon-yahan barnaamijkan ka qayb qaatay xukuumaddu daacad bay ka ahayd inay faragelin annagu dadkii tartamayay baanu ahayn wax faragelina xitaa maamuladii gobollada iyo degmooyinka shaqaynayay may wax faragelina kumay lahayn waadna ka arki kartaa dee natiijada soo baxday iyo sida aan loo kala cabanaynan xisbiyadii mucaaradku u cabanayn wadee dunida Afrika iyo waynu naqaanaa dunida xukuumadda laga qayliyaay xukuumaddu aad bay isaga moostay in ceeb ugu yimaadaan arrinta doorashadii isku lamaanayd ee beriirta la qabtay waxay ahayd wax yani mucjiso kale ah waxaana habboon in dadkii ammaantaa lahaa lagu ammaano oo qof walba ammaanta ku lahaa oo weliba madaxweynuhu runtii uu kow ka yahay madaxweynuhu jamhuuriyadda Soomaaliland uu ku amaanan yahay qabashada uu qabtay iyadoo dhaqaale buuran aan la haynin aniga aragtidaydu waxay tahay doorashooyinkii inoo soo maray tii ugu fiicneed bay ahayd faragelinta dawladdu sidii dadku ay ka baqayeen marnaba ma aysan dhicin sidii ugu fiicneed ay u maaraysay u maamushay dee halkaas soo gaarsiinay weeyaan quruxda u yeeshay maanta in doorashadaas ay dhacdo waana ku amaanan yihiin qolooyinka leh xisbiyada laftooda ay ku amaanan yihiin wixii wadanka ka dhacay doorasho ahaa tii ugu wanaagsanayd ee soo martay ee aan la isjiijiidan la isxagxagan ayaa run ahaantii ahayd waxaa kaloo door aan aad iyo aad u ammaanaya oo aan aad iyo aad ugu faanaya anigoo Somalilander ah aan ugu faanaya inay dawladdu ay faraha kala baxday oo dadkii loo igmaday inay maamulaan doorashada gudidii doorashada ee qaran inay maamulkii loo daayay waxay ahayd doorashadii ugu quruxda badnayd dhinaca farsamo iyo dhinaca doorasho iyo dhinaca ammaan iyo dhinaca tiro maanta axsaabta oo dhammi kuwa maxaafidka iyo kuwa mucaaradka ahba muddadii ay socotay codbixintaasi waxay sameeyeen discibliin fiican muran ma jirin waa sababta yaraysay murankii ka soo baxay natiijada xukuumadduna waxay muujisay dhaqankii ugu wanaagsanaa ee xukuumadda dimuqraadiga ay muujin lahayd oo ahaa inay sidooda u daysay komishanka doorashooyinku oo ay shaqadooda oo keliya wateen min degmo ilaa iyo gobol annaga xukuumadda dhinacan markaanu joogno madaxweynaha waanu faraxsannahay sababtoo annagu waxaanu ishaynay farmaajo waxaanu ishaynay qaar yidhi doorashada qabsan kari maysaan laba isa saaran waxaanu ishaynay doorashada muqdisho ka suurtagelila iyo ta halkan ka suurtagelaysa waxaanu ishaynay geeska afrika oo doorashooyin ay ka socdeen tartan baanu ku jirnay xooggan oo xooggan waxaanu ku jirnay ballanqaadkii xisbiga kulmiye ee xilligii doorashooyinka ee ahaa annagu doorashooyinka waqtiyadeedan ku qabanaynaa inaanu suurtagelinno markaa tartanka annagoo ku jirna bay dhinacayaga diyaar wax waliba bisayl bay ka ahaayeen waa markii ugu horreysay ee aynu ka ababnay caawimadii ay caalamku ina siin jireen badideedii oo aynu boqolkiiba 57 ay xukuumaddeennu ay lacagta bixisay halkaynu marka hore 25 keliya boqolkiiba aynu doorashooyinkii hore inagu bixin jireen inta kalena caalamku inaga caawin jiray marka inagoo aan cidina ictiraafsanayn inagoo aan dhaqaalo buuran lahayn iyadoo dunida waxa ka dhacay dhaqaale xumo la ogyahay oo corona iyo covid-19 iyo waxa dhacay la ogyahay ayaynu haddana guntiga dhiisha iskaga dhignay oo aynu ka ababnay baahidii aynu dadka wax weydiisanayno dhaqaalaha aynu ku tiirsanayn beesha caalamku shuruuday lahayd waqtigaa qabta sidaa u qabta sidaa ka daaya yacni waa lagula qaybsanayay maamulka doorashada aynu qabsanayno farsamo ahaanna waxaynu ku tiirsanayn beesha caalamka waxay ku timid doorashada Soomaaliland ee lagu guuleystay
rabitaanka iyo go'aan qaadashada madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland. ururada bulshada rayidka ahi waxay kaalin muhiima ku lahaayeen qabsoomidda doorashada waxaanay ka qayb qaateen dhinacyada wacyigelinta iyo sidii bulshada uga qayb qaadan lahayd doorashada. anigoo ka wakiila bulshada rayidka ee Soomaaliland ana gudoomiyaha ururada bulshada rayidka ee Soomaaliland runtii doorka ay ka qaateen ururada bulshada wuxuu ahaa mid aad iyo aad u ballaaran mid ay ka markhaati kacayaan bulshada iyo shacabweynaha reer Soomaaliland ayuu ahaa waxaanu ka shaqaynaynay inaanu dhammaan goobihii dalka majority-goodii ilaa 60% inaanu geynay goob joogayaal maxalliya oo runtii kasoo warbixinayay sida ay doorashadaasi u dhacayso sida ay xor u tahay iyo sida ay xalaal u tahay. waxay noo dhacday doorasho aad u qurux badan oo nabad ku dhammaatay inkastoo isku sidkanayd oo ay ahayd markii ugu horreysay oo ay Somaliland qabato doorasho noocaas ah oo dee culayskeeda lahayd anagu sida dadbane aanu maartay hablaha u taageeraynay waxay ahayd inaanu dee meelihii kale ay wax laga helayo ay ka heli karaan ay dee maxay ahayday dee loo galaanka loogu galo warbaahinta Somaliland doorkan aad uga qayb qaadatay doorashada iyo wacyigelinteeda iyo hadalkeeda iyo soo gudbinta oo aynu arkayna ilaa xilligii natiijada ilaa xilligii qaybinta marka laga soo bilaabo ilaa natiijada la soo gaaray cidda kaliya ee xogta tigaysa ee bulshada siinaysa ay ahayd warbaahinta Somaliland iyadoo warbaahin kale oo dibadda ahina inala joogtay haddana iyadoo oo ay taasisatay ayaa haddana wuxuu ahaa sanadkani oo aanu aad iyo aad ugu bagaarinay warbaahinta iyo guud ahaanba hay-adaha kale ee amniga inay ahayd markii koowaad ee aan saxafina la xirin xarun warbaahineedna aan la xabsi karinin wax alla wax soo gaaray miidiyaha oo aan ahayn inay wanaagga ay ka shaqaynayeen iyagoo shaqadooda ay qabsanayeen oo ay bulshada la wadaagayeen aanay jirin marka runtii anagu kasoo jahaan arrintaa aad iyo aad baan u bogaadinay inay ahayd doorasho warbaahintuna ay shaqadeeda haysatay dowladduna ay shaqadeeda haysatay hay-adaha amnigu ay shaqadeeda haysteen waxyaabaha noocaas ah ayaa doorashadan ka dhigayay mid qurux badan. doorashadani waxaa ka soo baxay arrimo cusub iyo waayo-aragnimo hor leh oo ay kaga duwaneyd doorashooyinkii hore ee ka dhacay Somaliland waana arrimo kaalin ka qaadan kara jihaynta doorashooyinka soo socda ee dalka laga qaban doono. wixii la oran jiray doorkan waa reerkeennii baa ilaa gabaabsiya oo hoos u dhacay waa cashirka ugu badan ee doorashadan laga bartay wax kale laga bartay in xisbul xaakim faragelin waayo wax boobi waaya sharafu ka qaado mooyee ceeb ay ku tahayba aanu jirin deenaade waxaan ka faa'iidnay horta waa mid dad qabiil ka tagay qabyaaladii waxaa kacay generation aan qabiilku micno u samaynayn maantana waxaa kacay oo codka 75% bixinaya waa dhalinyaro aan qabiilku u baahan warya wax qabanaya warya iskuul dhisaya warya wada dhisaya iyo magaalada hagaajinaya marka waxaan leenahay dadka qabiilku ku meereysan jirow waqtigiisa waa dhamaaday dhalinyaradii ayaa musharaxiintu dhalinyaro u badnaayeen jiil cusub ayaa hogaankii dalka golayaashiisii u soo baxay deegaamadii u soo baxay meeyaradii noqday oo golaha wakiiladana noqday halkii ay marka hore inta badan dad waaweyn ku jiri jireen waxaynu ka baranaynaa inaynu hore u samaysano diyaargarow ballaaran oo intaynu muranka ka baxno iyo waxyaabaha keeni kara dib u dhac aynu inagu isku kalifno aynu nidaam waaraya oo sharciyeysan oo xeerarkiisa diyaar u yihiin aynu u sii dhigno tallaabo iyo arrin waxaa ka yimid hanjabisay qof kasta oo ku fikirayay inuu nidaamka qabiilka ku dhisi karo isagoo hankiisa waxa weeyaan taas intay jabiyeen oo dhallinyaradeenni iyo xadaaradeenni dhaaftay baa waxaa la gaadhay in laga gudbo oo xayndaabkaa la jabiyo oo la yidhaahdo wariyaynu u codaynaa hawshan qaban karaya waxa weeyaan iminka dadku laba inan bay tijaabiyeen runtii wixii ayaga ka mutaan ama tusaalaha iyagu noqdaan waxqabadkooduna waxay noqonaysaa iyo habkay u dhaqmaana wax kale oo sii raadeeya arrinta dambe ee berrita iman karta waxaynu ka baranay oo ugu weyn inaynu awood u leenahay iyo karti inaynu qabanno doorashooyin fara badan oo wada socda oo hal mar la wada qaban karayo sababtoo doorashooyinku waxay dalkeenna ku hayaan culays waxa kaloo aynu ka barannay inaynu soo yarayn karayno khaladaadka dhaca waynu ka barannay waxaynu ka barannay in marka la murmana doorasho aanay qabsoomaynin sidii doorkii dhoweyd markay axsaabtii xukuumaddu heshiiyaanna doorashadu ay qabsoomayso waxaynu ka barannay in ummaddeenna aynu barnay
in qabyaaladda lagu suulin karo iyo doorashada lafteeda. dhinaca kale waxaynu ka baranaynaa madaxweyne qarankiisii mideeyey, madaxweyne qarankiisii yani gaarsiiyey guushii ugu weyneyd, madaxweyne ka muujiyey qarankiisii muxuu ahaa inuu geeska Afrika iftiin ka baxaya uu noqdo. waxaa inoo iman doonaa maalmo dhow wadamada geeska Afrika iyaga oo raba inay bartaan sida ay Somaliland isu maamushay iyo doorashooyinkooda iyo dhinacadeeda wanaagga waxaa ka mid ah in mashhuur garownay social media oo qayb weyn ka ciyaaray xataa qofka wanaagsan inay keenaan suuqa wanaagga ay hesho waxaa ka mid ah qabiilka lala gabooyaha oo isa soo saaray oo ay uga fiican tahay tan in koota loo xidhi lahaa. haddii koota loo xidhi lahaa weligoodii allahood magacoodu muu soo kaceen. arrimaha doorashada haddaynu gees kale ka eegno waxaa ka qayb galay 28 haweena oo ku kala tartamayay golayaasha wakiilada iyo deegaanada dalka, kuwaasi oo 3 ka mid ah ay ku soo baxeen golayaasha deegaanada dalka balse aanay waxba kaga soo bixin doorashadii golaha wakiilada. arrintaasina waxaa dareenkooda ka dhiibtay. dabcan xawalay baanahay ilaahay subxaanahu wa ta'aala rag iyo dumar buu abuuray. waxaan jeclaan lahaa doorashadii codadkii lagala bakhaylay haweenkii istaagay in haddii dumar kale mar dambe istaagaan inaan sidii oo kale loogala bakhaylin in codka la siiyo. waayo mutacalimiin baa taagnayd, dumar wanaagsan baa taagnaa, marwooyin wanaagsan baa isu soo sharaxay. wax wanaago waddanka ku soo biiriyaan mooye dhibaato umay geysteen, wanaaggu bay sii kordhin lahaayeen. quruxdan doorashadeenu lahayd ayuunbaa sii qurux badnaan lahayd. gabdhuhu waxay u soo bixi waayeen dee waa arrimo badan oo aynu iska ognahay, waa arrimo dhaqan, waa arrimo dhaqaale, waa maxay tahay weliba dee ay ta ugu horeysa ay tahay arrimihii dhaqankii oo saamixi waayey inkastoo dee cuqaasha qaarkood ay hablaha maxay ahayday in reerkooda soo saareen oo ay dhaheen yani soo bandhigeen ay dhaheen waanu ogolnahay inay tartamaan. waqti dheer bay qaadanaysaa inaynu ku xorowno yaa maskaxdan qabiilka ka xorowno. imika waa la bilaabay dee maxay ahayday imika habluhuba dee ma odhan karno waxba may helin. habluhu waxa weeye waxay soo gaadheen ilaa heer marjinkii ay taagan yihiin intooda badan. maxay ku soo gaadheen? dee waxay ku soo gaadheen wacigaa furfurmay inaanay dee soconaynin in maaragtay dhinacuna ay u rarnaato bahasho. yaa bal maanta waa taase maxaa ka fool xun inay 82 xildhibaan oo hal gabadhi aanay soo fadhiin halka ay soo fadhistaan. dee madaxweynuhuna tuu qabtay maanta 28kaasi mabay soo tartameen haddaanu ka dhaafin. yaa maxay ahayday registration fiigii ahaa 4,000 iyo dheeraadka ahaa oo maxay tahay aanay awood iyaga maxay dadka laga tirada badan yahayba aanay u haysanin. taasna uu xilkii qaatay oo laga dhaafay markaasay tiradu is 4,28 gaadhay. doorashooyinkaasi sidaa quruxda badan bay nagu dhaceen weliba turxaan la'aanta ah. waxa keliya oo yaraa barmadow inagu yar ahayd in haweenkeennii quruxda badnaa ee isu sharxay inaanay soo gelin runtii ama nasiibaan u yeelan. laakiin waa aragnimo badan iyo ay iyaguna ka heleen oo markii ugu horreysay xataa ay dadkeena shacabkuna iyaguna ay u footeeyeen qof haweena, isla markaana iyaguna ay intaa campaign badan ay galeen runtii oo ay raggii qaarkood baradheereeyeenba ama ay sigeenba. waxaan rajaynayaa marka labaad inay iyaguna ay soo bixi doonaan. anagu dadaale orodnay jabinay gidaarhadii sida raggu maxay tahay u ololeynayeen baanu ololeynayeen, lacagtay bixinayeen baanu bixinayn, ummadaydu waana daba socotay. marka doorashadan waxay u baahan tahay in la fahmo dadku bartaan. waxaynu u baahannahay inaynu maxay tahay bahashana qabiilka laga saaro. haddaba isweydiintu waxay tahay dalka Somaliland muxuu ka faa'iidayaa siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaanba doorashadan wanaagsan ee buuxisay dhammaan shuruudihii doorasho dimuqraadiga ay lahayd. waa kuwan jawaabaha ay ka qaybgalayaasha barnaamijku ka bixiyeen su'aashan. horta sideedaba doorashada uma inaan qabanin inaynu ku raali gelino cid ajnabi iyo caalamka toona. innakaa qabsanay dastuurkeennaynu raacnay, shuruucdeedaynu raacnay, faa'iidadana innaka iska leh, cid kale ma laha. hase yeeshee dabcan dee wixii qurux badan haddana in lagula ogaado, laguna qadariyo, laguna qiimeeyo way wanaagsantahay. waxaan rajaynaynaa runtii sumcadda Somaliland
inay doorashadaas aad iyo aad kor ugu qaaday oo ay keeni doonto maxaan idhahdaa ama soo dhoweyn doonto aqoonsiganu raadinaynan xaqda u leenahay maalgashiga waxay soo jiitaan nabadda iyo degenaanshaha maalku ugu baqa marka runtii doorashadan waxaynu xaqiijinay Soomaaliland inay tahay meel aamin ah oo degan oo la isku halayn karo oo kala dambeyn leh taas waxaan rajaynayaa inay keento in dad fara badan ku soo dhiiradaan waddankeena maal gashadaan iyada laftigeeda waxaynu caddaynay inuu nahay xukuumad iyo dal jira oo ismaamulo nidaam leh oo nidaamkiisa ku dhaqma taas waxay keenaysaa kalsooni waxaan rajaynaynaa runtii sidii laynoola dhaqmi jiray amba wixii layna siin jiray labadaba in wax ka bedesho kor u qaado waxay keeni doonaan doorashada inaynu ka faa'iidi doonaa adduunyadii oo albaabadeedii inoo furmeen in la ina sii aamino ila waxyaabaha la qiimeynaya dadka qiimeynaya waxa weeye dalkani siyaasiyan ma degan yahay dee hayo doorasho intaas leeg buu qabtaayo deera bay jirtaa marka adduunyada waxay inooga geynaysaa doorashadani dee dabkii baxayaa dab lagu qabsadaa bisoo midqaada marka bulshada caalamka waxaanu xaq ugu leenahay in aynu maadaama aynu qabsanay wixii inaga inagu xidhnaa oo dhan laynagu abaalmariyo inaynu ka helo waxaynu xaq ugu lahayn oo ah in loo aqoonsado qaran danihiisa qabsaday oo qaramada la siman waxaa haddaba muhiim ah oo maaragtay ay tahay in laga faa'iidaysto fursadaha ay dhashay doorashada oo ay kow ka tahay sidii dowladdu ay uga faa'iidaysan lahayd sidii ay bulshada caalamka ay xiriir kala leedahay ay ugala hadli lahayd in qaabkii hore ee Somaliland loola dhaqmi jiray qaab ka duwan inuu wado taasi waa mas-uuliyadda aan filayo inay xukuumaddu xilligiisa saari doonto wax weynna waa maanta anigu rajo weyn baan ka qabaa oo maaragtay dilo weyn baa ayaa runtii aan arkaa ammaan ballaaran bay ku mutaysan karaan ammaan aad iyo aad u ballaaran oo adduunkana kalsooni ku beeraysa in Somaliland shicib iyo xukuumadba ay ka dhab tahay inay rabaan inay doorasho sameeyaan waxaa jira dalkan jaarkan ah Soomaaliya ee dhinaca naga xiga 30 sanadood ayay doorasho dhigi kari waayeen waxaan ku faraxsanahay reer Somaliland ku bogaadinaya inay noqotay Somaliland marjac loo soo noqdo marka doorasho laga qabanayo gobolka Bariga Afrika oo wax laga baran doono ugu dambeyn madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa si weyn uga mahad celiyay cid kasta oo gacan ka geysatay doorashadan dalka ka dhacday oo ay ugu horeeyaan guddiga doorashooyinka qaranka anoo ku hadlaya afka qaranka dhammaan ummadda reer Somaliland inay idinka mahadnaqayso sidii wanaagsanayd ee doorashada maamushay waxaan idinka mahadnaqaynaa oo qarankiina idinku mahadnaqayaa dhibaatadii soo jeedkii culayskii intaa leeka aad u dhowr adeegteen iyo in dadkii baratamayey ee 900 ku dhowaa dhammaantood kii soo baxay iyo kii aanay tirin inta lagu soo baxay gaarima ay raalli ka ahaayeen garsoorkii aad samayseen waxaa kaloo loo mahadnaqayaa intii ka qayb qaadatay doorashada si toosa iyo si dadban inay doorashadaas sii gasho oo kow ay ka tahay xukuumadda qaybta qaabilsan amniga iyo qaybta qaabilsan dhaqaalaha labadaa hay-adood waxay xoog u geliyeen dadaal intaa geliseen in ka badan inay doorashadaas sii gasho waxaa la mid ahaa wasaaradaha wacyigelinta qaabilsan iyo warbaahinta madaxa bannaan ee qaranka oo u shaqeeyey si wadannimo hadday TV yihiin hadday maxay ahayd social media yihiin dhalinyarada iyo kuwan kale waa marka qura loo wada adeegay wanaagga oo ku dhammaanaysa doorashadaas waxaynu u mahadnaqaynaa shaqaalihii ka shaqeeyey doorashooyinka ee u badnaa dhalinyarada jaamacadaha waxaynu u mahadnaqaynaa codbixiyaasha waxaynu u mahadnaqaynaa cid kasta oo ay naga taageertay dhaqaale talo moral duco waxaynu u mahadnaqaynaa dhammaan shacbi weynaha Soomaaliland meel kastaba ha joogaan oo si isku niyada nagu taageeran waynu mahadnaqaynaa